wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka TV-ga Hilaac qodobada daawan doontaan waxaa kamid ah qarax ismiidaamina ayaa ka dhacay degmada Buuloburda ee gobolka Hiiraan. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalinta helidda xogta. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaali iyo gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka feejignaadaan roobab daadad wato oo laga cabsi qabo in toddobaadyada soo socda ay ka da'aan Muqdisho. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dib xorriyadiisa u siisay kadib markii wax dambi ah ay ku weysay agaasimihii hay'adda shaqaalaha iyo arrimaha bulshada Cabdullaahi Suldaan. gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaali taliyaha ciidanka booliska ayaa tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan ilaalada deegaanka Xamar. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Laamaha ammaanka Galmudug ayaa ka hortagay qarax loo waday magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Guud ahaan warka TV-ga Hilaac waa naga intaa.